هاي wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaad waxaan rabaa inaan idin la wadaago xogtii wararka ugu dambeeyay dagaaladii duqeymo iyo abaabul ka socda caawa gobolka Shabeellaha Dhexe. Shabeellaha Dhexe ayaa waxa lagu soo waramayaa in duqeymo lala beegsanayo kooxda Al-Shabaab ay ka socdaan gaar ahaan degmada Masaajid Al-Guduud, Al-Kawsar, Aadan Yabaal iyo deegaanka Xaji Cali. Halkaas oo kooxaha Al-Shabaab laga war helay inay isku soo urursanayeen iyagoo damacsanaa in halkaas fariismaha ciidanka xogtiga Soomaaliyeed ay ku leeyihiin weer ku soo qaadaan. Sidoo kale caawa gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ka socda abaabul ka dhana kooxda Al-Shabaab kadib markii shalay dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen degmada Masaajid Al-Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Taasoo Al-Shabaab u suuragelisay in gacan ku haynta degmada Masaajid Al-Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe Al-Shabaab ay la wareegaan muddo saacado ka badan. sidoo kale caawa gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ka socda duqeyn la beegsanayo xubno horjoogyaal oo Al-Shabaab la sheegay in halkaas ay ugu qudbeynayeen tiro dagaalyahanno oo damacsanaa in weerar ay ku soo qaadaan xerooyinka dawladda halkaas ay ku leeyihiin. Tiradan dagaalyahanadu lagu qudbeynayay qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa caawa la beegsaday duqeymo culus. Duqeyntan caawa la beegsaday tiradan dagaalyahanada ayaa lagu soo waramayaa inay timid kadib markii kooxda dagaalyahanno ka tirsan in meel u dhow degmada Masaajid Al-Guduud masaafo ahaan meel u jida 20 kiiloomitir degmada Masaajid Al-Guduud ay isku urursanayeen tiradan dagaalyahanada ah. diyaaradda Kanji oo Soomaaliya dhawaan la keenay ayaa duqeyntan caawa fulisay waxayna duqeyntan caawa diyaaradda Kanji ku dushay tiro dagaalamayaal oo gaaraya 25 askari oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. sidoo kale duqeyntan caawa waxa lagu dilay tiro horjoogyaal oo ka tirsan kooxda oo halkaas iyagu ugu qudbeynayay raggan la damacsanaa in ay weerar ku soo qaadaan fariismaha ciidanka ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la wadaago xogtii wararka ugu dambeeyay abaabulka ka dhana kooxda Al-Shabaab caawa gobolka Shabeellaha Dhexe ka bilowday. xogo hoos aan helin ayaa sheegaya in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha maxkamadda gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ay caawa u ruqaansadeen dhanka degmada Masaajid Al-Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii dagaalyahanno ka tirsan shalay halkaas Al-Shabaab ay gacanta ku dhigeen balse nasiib wanaag xalay laga saaray kooxda Al-Shabaab. caawa Masaajid Al-Guduud waxa ku sugan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha maxkamadda sare Jenaraal Shuute. halkaas oo ay caawa u joogaan dardargelinta dagaalka ka dhana kooxda Al-Shabaab oo la rajeynayo in caawa saqbarkii kooxda Al-Shabaab weerar ka dhana halkaas laga qaado. sidoo kale Al-Kawsar caawa waxa ka socda abaabul ka dhana kooxda Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa la rajeynayaa in caawa afarta jiha ee Al-Kawsar, deegaanka Masaajid Al-Guduud, deegaanka Xaji Cali iyo Aadan Yabaal in dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab caawa uu ka bilowdo. sidoo kale caawa waxa socda duqeymo ka dhana kooxda Al-Shabaab oo laga beegsanayo Masaajid Al-Guduud, Al-Kawsar, Aadan Yabaal, deegaanka Xaji Cali halkaas oo la soo warinayo in saacadii la soo dhaafay isku soo urursanayeen tiro dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. sidoo kale waxa lagu soo waramayaa in qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Cadale caawa lagu arkayay dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib markii kooxda Al-Shabaab ay u soo ruqaasatay degmada Cadale. Al-Shabaab ayaa caawa dhaqaaqyo ka wado degmada Cadale halkaas oo lagu soo warinayo in Al-Shabaab jidgooyo ay u dhiganayeen baabuurta shacabka ee halkaas marisay. Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda waxay ku wada sugan yihiin qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa xoojisay bishan Ramadaan weerarada ay ka geysanayaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hooseba. in Al-Shabaab bishan Ramadaan ay xoojiso weerarada ka dhanka ah fariismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ayaa imaanaysa kadib markii Al-Shabaab laga gaabiyay dagaalkii duqeymaha joogtada ah ee kooxda lagu hayay. Al-Shabaab waxaa jab weyn lagu gaarsiiyay duqeyntii ka dhacday degmada Jilib halkaas oo ahayd fariisinta ugu weyn kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin. sidoo kale waxaa Al-Shabaab duqeyn weyn xalay lagula eegtay gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Ceelbuur halkaas oo Al-Shabaab la rumaysan yahay inay tahay fariisanta labaad ee ku leeyihiin gobolka Galgaduud waxayna ka soo abaabulaan weerarada qaraxyada ay ku qaadaan gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaan ka codsanayaa intaan la soo gaartay inaad subscribe janaalka like na siina share gareysid aad iyo aad u mahadsantahay.